ugu dambeynna ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhawaan fariisimo ka samaystay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo ay al-shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku qaadaan magaalooyinkaasi waxaana goobihii ay fariisimaha ka samaysteen tagay maanta madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Ibrahim Al-Nuur ayaa warkan inoo soo diray goobahan dhawaan fariisimaha ay ka samaysteen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka ayaa ah wadada u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ururka al-shabaab ay ka geysan jireen weerarada waxaana maanta goobahaasi kormeer ku tagay mas'uuliyiin oo horkacayay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ujeedada kormeerka ayaa ahaa in mas'uuliyiinta dhiirigelin u sameeyaan ciidamada waxayna ku wareejiyeen 2 neef geel ah iyo raashin taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Generaal Axmed Maxamed Calisow ayaa ka mahadceliyay booqashadii dhiirigelinta maanta ay u sameeyeen madaxda maamulka Hirshabelle aan aad ugu mahadcelinaynaa deeqda ayna soo gaarsiiyeen maamulka Hirshabelle oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka deeqdaas oo isugu jirtay raashin iyo maxaan ku yiraahdaa xoolo nool oo maxaan ku yiraahdaa geel ah iyo daawo aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay dadka iyo dalkaba waad madaxda u tihiin insha Allah idin barakeeyaan leenahay anagana waa idin garab taaganahay dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwe Canib Axmed Ciise ayaa waxay sheegeen goobahan ciidamada fariisimaha ay ka samaysteen in wax badan ay ka bedeli doonaan amniga wadada u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe dhibaatada ku hayay sida Qalimow iyo Ceel Geelow aad iyo aad ayaan maartay u dhiirigelinaynaa ciidamada tallaabada ay qaadeen iyo saraakiishaba waa wax maartay muddo dheer la sugayo laguna taamay muddo dheer in xarajeyna inay maartay guusha bilaabatay iyo maartay gobolka qaybaha ay ka joogan nimanka nabadiidka oo umada dhibaatay waxaan leenahay ciidamada qalabka sida guulaysta hameen iyo maalin garabkiinaan taaganahay guulaan dhammaan garbaha idin sugnay ilaahay idankii madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa isna sheegay inay sii wadi doonaan dhiirigelintii bogaadinta ay u sameynayaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada Hirshabelle xaqiiqda waxaan idin leeyahay waad ku amaanan tihiin shaqadiinni oo maaragtay intii la idinka raba in ka badan aad qabateen aan leenahay waana rajaynaynaa insha Allah madaxda qarankana inay si gooniya ay u fiiri doonto wanaagga iyo maaragtay geesinimada iyo isku kalsoonida samayseen in la tixgeli doono insha Allah anaguna goobo badan aan ka sheegi doonaa waana idin garab taaganahay oo ma aha doonta kaliya waad mahadsantiin waana dadaasheen kaliya dheemo doonee habeen iyo maalin idin garab taagnahaynaa waa idin la geleynaa goob kasta nimankan cadawga ay galaan Ibrahim Al-Nuur TV Universal عاصمة Hirshabelle Jowhar